asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. wakhtiga ama zamanka ayaa si aad u degdeg badan nagu dhaafa markaan ku guda jirno bisha barakaysan ee ramadaanka, inkastoo aysan dareemin dadka badankooda. isagoo zamanku uu isla zamankii yahay oo sanadkuna uu isla sanadkii yahay oo saacadduna ay isla saacaddii tahay, haddana waxay dadka qaarkood isweydiinayaan, maxaan u dareennaa in maalmuhu ay si degdeg ah inagu dhaafayaan intaan ku guda jirno bishaan aadka u barakaysan? wuxuu soonku inagu dhaafay sida inuu hal maalin oo keliya ahaa oo kale. waxaadna dareemaysaa sida in wakhtigu uu ku gaaday ama intaad seexatay aad soo toostay oo kale. waa calaamad ka mid ah calaamadaha qiyaamaha iyo weliba degdegiddii zamanka ee aakhiru zamaanka ee uu nebigeena calayhi salaatu wasalaam inagu baraarujiyey 1400 oo sannadood ka hor. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو أبي هريرة الله كرر لنقضي حديث كان قده سكشيغي النبي عليه الصلاة والسلام أويري لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. ساعد أما قيامه مدعي دونه إلا علمك لقاقاده وتكثر الزلازل أو القريردنا أي كبتان ويتقارب الزمان أو زمن كنا أو إسكول الدوادو وتظهر الفتن فتنوين فربضن أي صبحان ويكثر الهرج وهو القتل oo sidoo kale dilkuna uu badan doono xataa yakthura fiikum almaalu fayafiid, ilaa maalku uu dhexdiina ku bato oo aad ka xiisa dhacdaan. sidoo kale aan u fiirsanno hadalkii nabiga sallallahu calayhi wasallama uu yidhi laa taquumu asaacatu xataa yataqaaraba azamaan. qiyaamuhu ma dhici doono ilaa zamanku uu aad isugu dhadhowaado. fatakuunu asanatu kashahr. wuxuu sanadkii noqon doonaa sida bishii oo kale. washahru kaljumca. bishiina waxay noqon doontaa sida isbuucii oo kale. watakuunu aljumcatu kalyawm. isbuuciina wuxuu noqon doonaa sida maalinkii oo kale. wayakuunu alyawmu kasaaca. maalinkiina wuxuu noqon doonaa sida saacad oo kale. watakuunu asaacatu kadarmati binnaar. saacadduna waxay noqon doontaa sida geed yar oo la shiday intuu ku dhammaanayo oo kale, ama taraq la shiday intuu ka demayo oo kale. maqsuudka ama micnaha loola jeedo taqaarubu zamanka ama isku dhadhawaashaha zamanku waa in wakhtigii barakada laga siibo ilaa zamanku uu ka noqdo mid aad isugu dhow. daqiiqaduhu waa sidoodii oo waa isla 60kii mirir ee aan ku naqaanay oo waxba iskama beddelin xisaabtooda. saacadduna waa uun isla 60kii daqiiqo oo aan ku ogayn, balse maalinta inta laga faa'iidaysto ayaa waxay la ekaan doontaa oo keliya inta saacad laga faa'iidaysan jiray. dhammaan arrimahaasi waxay ina tusayaan in barakada laga siibi doono zamanka, iyo in wakhtigu uu si degdeg ah inagu dhaafi doono, iyo in aanan laga faa'iidaysan doonin degdeggiisa iyo barakayaridiisa awgii. tanina waxay imaanaysaa iyadoo gobollada iyo degmooyinka iyo waddamada iyo qaaraduhuba ay aad isugu dhadhowaadeen, taasoo ay sabab u tahay aaladaha casriga ah ee isgaarsiinta iyo wuxuu alle subxaanahu wa tacaala bani aadamka samayntooda u fududeeyey oo ah baabuurta iyo weliba diyaaradaha. ruux walba oo inaga mid ah wuxuu dareemayaa taqaarubu zamanka ama isku dhadhawaanshaha wakhtiga ee lagu xusay xadiiskii shariifka ahaa gudihiisa. waxaan arkaynaa in wakhtigu uu si aad u degdeg badan inagu dhaafayo. waxaad arkaysaa ilmihii yaraa oo isla markiiba dhallinyar noqonaya, iyo kuwii dhallinyarta ahaa oo niman waaweyn noqonaya, iyo nimankii waaweynaa oo isla markiiba ciroobaya oo odayaal waaweyn isku beddelaya.
waxaana intaas dheer arrin kale oo aad u argagax badan oo dadka intooda badan aysan ku xisaabtamin oo ay ka qaafilsan yihiin, arrintaasoo ah in cimrigu uu aad u degdegayo oo qof walba oo inaga mid ah sannadihii nolosha ee la siiyey ee loo qoray ay si degdeg ah ku dhammaanayaan. waa wakhtigii uu qof walba oo inaga mid ah naftiisa dib isugu laaban lahaa. qof walbow naftaada dib isugu laabo oo isweydii wixii aad ka gaabisay Alle subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa iyo xuquuqihii lagugu lahaa. qof walbana waa inuu isla saacaddanba ka toobad keenaa wixii dunuub iyo macaasi ahaa ee ka dhacay sannadihii marnaa ee la soo dhaafay. qof walbana waa inuu go'aansadaa inuu ka beddel keeno wixii gaabis ahaa ee horay ooga dhacay. qof walbana waa inuu cimrigiisa ooga faa'iidaystaa wax adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba anfacaya, isagoo mustaqbalka maalmihiisa soo socda shacaar ka dhiganaya xadiiskii nebiga sallallahu calayhi wasallam. wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam: iqtanim khamsan qabla khamsa, 5 ka faa'iidayso 5 ka hor, shabaabaka qabla haramik, dhallinyarnimadaada ka faa'iidayso ka hor inta aadan duqoobin, wasixataka qabla saqamik, caafimaadkaaga ka faa'iidayso ka hor inta aadan xanuunsanin, waghinaaka qabla faqrik, hodantinimadaadana ka faa'iidayso ka hor inta aadan faqiir noqonin, wafiraaqaka qabla shughlik, wakhtigaaga ama firaaqadaadana ka faa'iidayso ka hor inta aadan mashquul noqonin, waxayaataka qabla mawtik, noloshaadana ka faa'iidayso ka hor inta aadan dhimanin. فاللهم أعنا على حسن استغلال الوقت والعمر الذي أعطيتنا إياه ربنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.